dhalinyaro aad u fara badan oo xerta iyo asxaabta iyo isugu jirta yaa soo weydiiyeen sheekhow noloshay waa adkaatay raggaas ama Afrika joogan Soomaaliya joogan ama rag wadamada reer galbeedka dhawaan imaaday oo niyad jab ku dhacay markay imaadeen ayay isugu jiraan marka su'aashay weydiiyeen waxa ahayd sheekhow noloshu waa adag tahay maxaan sameeynaa sidee nolosha heer uga gaari karnaa nin horena arrintan waa uga hadlay laakiin inaan ku celiyaan rabaa waxaan rabaa inaan xaqiiqada idiin sheego xaqiiqadu waxay tahay noloshu ma adka adiga ayaan fahansanayn adiga ayaan maskixiyan diiniyan aqliyan cilmiyan adiga ayaan u diyaarsanayn noloshaan tusaalaan ku siinayaa si fiican ii dhegeyso tusaale waxa weeye haddaad aqoonsi baabuur loo wado wadda busy qofkira baabuur ku wad maanta stress baa kugu dhacaya waxba xataa uma jeedaysto waa qof waalan camal aan noqonaysa confusion baa kugu dhacaya wadnaha afka kugu soo gelaya laakiin highwaygaas ninkii trainer u yaqaan oo darawalka markuu baabuurka ku wado muusigiisu iska dhageysanaya noloshu waa u kala kacsan tahay isku wadadii waaya isku baabuurkii waa baabuurkii isku mid weeye wadadii isku mid weeye adigana aan aqoon oo ku cusub oon diyaarsanayn wadnaha yaa afka kugu soo galay ninkii yaqaanana inuu xataa dhareef garo meel kale ka fakarayaa sababta maxaa kala duwan experience iyo maskixiyan iyo inuu qofku waxa uu diyaarsanayn ayuu ku faraxsanaan karaa macnaheedu muxuu yahay nolosha waxaad ku qancaysaa oo ku faraxsanaan kartaa kadib markii aad fahansan tahay marka waxaan kaa rabaa raggaas dhalinyarada ahow inaad meel ku qorataan noloshu ma adkee anaan fahansanayn shaqadu ma adkee anaan fahansanayn iskuulku ma adkee anaa wax iga khaldan yihiin inaa meel ku qorat adigu horta maanta marka kugu horeysa noloshaada bal waxaan kaa doonayaa inaad qaadatid mas'uuliyad inaad waxaas fahansanayn anna waxaan ku ballan qaadayaa inaa bahalkan la yiraahdo aad xaaladdu ku fududaan doonto insha Allah marka meesha joogtid ama Afrika ahaato ama wadamada reer galbeedka ahaato meesha rataba jooga nin ayaa wingaraynaya nin baa u kala kacsantaa ninkaas muxuu kaaga duwan yahay wuxuu kaaga duwan yahay ninkaasu nolosha ayuu fahansan yahay adiguna intaa fadhidaa complaining baa la soo jeedaa marka qodobo kalena waa ka hadli rabaa laakiin videogiisa ugu dheeraan muhiimaddu waxaa weeye idinka raa meelaan ku qoratiin aniga ayaan nolosha fahansanayn wax kastooda adduunka fahansanayn way adag yihiin haddii aad dumarka fahansanayn way ku dhibantaa haddii aad iskuulka fahansanayn